السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسنا أصحابي ملكستو أتوقتان كسر هذا برنامج كنا قلم نمو ما أنت وسبت تاريخنا وأفرت أكتوبر سنة كلا بكوري شن لاتن وبرنامج كنا لاد ما أنت ردي سو قد بني وقد بدأ برنامج كان ردي كوجا يوحى كم ذا يدو حلي دونالد ترامب وقبا إسرائيل إن يجوجسوا دقيمها يكودوا غزة ما أنت أيال شيء إن إسرائيل سيو ضد قيمه هذا haddaba ujeedada Netanyahu iyo kooxdiisu maxay tahay tafaasiil baan idinkaga hayaa kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta oo qaarkood la sheegayay saacadihii la soo dhaafay inaanay ku qanacsanayn go'aanka Hamas ayaa hadda waxay soo saareen war wada jira haddaba warkaasu muxuu yahay ay ka soo baxay muqaawamada Falastiiniyiinta oo dhan waxaa kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona Masar oo sheegtay inay martigelinayso shirweyne caalami ah oo Falastiiniyiintu isugu yimaanayaan kaasoo looga arisanayo dagaalka Gaza kadib sidii loo maamuli lahaa Gaza haddaba tafaasiisha sheekadaas iyana barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idinkugu hayaa Turkiga oo ugu baaqay Israa'iil inay diyaaradda soo saarto muwaadiniinta Turkiga ee ay qabatay kuwa soo saarnaa doomihii gargaarka u waday Gaza haddii kale maxaa dhacaya iyana qaybaha dambe ayaad ku ogaan doontaan qodobadaas ayaynu galabta oo sabtiga barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa la socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan ogeysiis muhiim ah waxa lagu wargelinayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya in la furay xarun ay ku midaysan yihiin injineero Soomaaliyeed oo dhanka dhismaha waxaana lagu magacaabaa xaruntaas Vanguard Solutions waxay ka caawinayaan hindisaha iyo naqshadaynta dhismooyinka kala duwan sida daaraha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban kaabayaasha culus ee dhaqaalaha sida wadooyinka buundooyinka eraboorada iyo dekadaha iyadoo ay ku adeegayaan injineero khubaro oo ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa sida wadamada midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe waana khubaro ka diiwaan gashan macadyada qabiirada injineerada ee dalka UK sida macadka la yiraahdo Institution of Civil Engineers oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE kuwaas oo ka gaaray heerka aqoontooda C engineering iyo waliba dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye waxay sidoo kale ku ballan qaadayaan inay ka shaqeyn doonaan adeegyadaasi fadlan la xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran si aad u hesho injineeradan takhasuska u leh dhismaha kala duwan kulanto wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaa ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay Gaza iyadoo xalay Hamas ay bixisay jawaabteeda hindisaha Trumpna uu soo dhaweeyay isla markaana Israa'iil uu ugu baaqay inay isla markaaba joojiso duqeymaha ay ku hayso Gaza si fursad loo siiyo qorshaha iyo sideynta maxaabiista la isdhaafsanayo waxaa hadda la sheegayaa Israa'iil inaanay marnaba joojin wax duqeyna oo duqeyntu ay waliba sidii hore si ka daran ay u wado arrinkaas ayaa su'aalo badan laga keenay la leeyahay Israa'iil kuma qanacsana waxa socda ma filaynin in Hamas ay taatikadan siyaasadeed ciyaari doonto oo waa aqbalay ay dhihi doonto Trump hadalkiisa
netanyahu raggiisiyaa gadaal ka taagan. Smotrich iyo Ben Gvir waxay leeyihiin waa kaasi jooji dagaalka Gaza. haddaba sheeko waali ah ayaa socotaa la leeyahay, waa arki doonaa. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada haddaynu aragno, Israa'iil waxa ay iska dhaga tirtaa la leeyahay baaqii Trump ee ahaa in ay markaasi joojiso dagaalka, waxaana ay sii wadaa hadda duqaymihii ay ku haysay Gaza. wararku way sii socdaan. waxaa leeyahay ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo sabti ah waxay duqaymo xoog leh oo dhinaca cirka iyo madaafiicba isugu dareen qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza, waxaana la sheegay inay sababeen duqaymahaasi dad cusub inay shahiidaan, kuwo kalena ay ku dhaawacmaan. waxaa xitaa ku jiray kuwo la sheegay inay markaasi gargaar iyo wax sugayeen, iyadoo la sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Tel Aviv uu ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u joojiso duqaymaha, maadaama Xamaas ay muujisay inay doonayso nabad. u fiirsada marka nimanka kan waxa leeyahay shock ay ku noqotay, way naxeen markii la yiri Xamaas way aqbashay. waatii maalmihii la soo dhaafay warar suuq ku jira Xamaas ma ogolaaneen lahayn. Xamaas farsamo kale la timid, qaybtan waa ogolnahay, maxaabiista waa deenaynaa, laakiin annagana wixii aad noo ballan qaaday Trump miiska soo saar, dowladii Falastiinkan hubka waa siinayna. nimanka taatikada lala ciyaaray Yahuudi ilaa hadda waa shoogsan yihiin leeyahay, waxay ku baqayeen argagax ku baqayeen. marka sheekadu halkaas maraysa. dhanka kale warbaahinta Israa'iil ayaa warar kala duwan shaacinayay maanta oo ku saabsan Xamaas go'aankeeda lama wada qabaan. nimanka la yiraahdo muqaawamada kale, jabhadaha kale qaar diidan, macnaha Xamaas maaragtay waxay ogolaatay kuwa kale way diiday. sheekadii markaas haddana halkaas ay wax ka raadiyeen oo ay leeyihiin Xamaas kaliya meesha kama dagaalantee, Xamaas hadday ogolaatay kuwii kale ma war soo saaraan. isla markii nimanka Falastiiniyiinta maxay sameeyeen? shiray yeesheen. haddaba markaan idin tuso telefishinka Al Jazeera oo war ka soo saaray arrintaas, kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta waxay ku dhawaaqeen oo ay sheegeen inay taageersan yihiin jawaabtii Xamaas ee ku saabsan hindisaha Trump. kooxii oo dhan ayaa war soo saaray isku mid ah, war saxaafadeed inta kulmeen war soo saaray. waxay yiraahdeen Xamaas jawaabta ay bixisaan la qabdhaa. Netanyahu iyo raggiisa meela wax ka doontaan male, dawla Falastiiniya miiska la imaada keena. marka sheekadu halkaas maray baashi. marka waxay noqotay bahal iska daba wareega oo wareersan, taatiko la yaab laha la isla ciyaaraya. iyadoo sheekadu ay halkaa joogto, Masar soo boodo waxay tiri waxaan qabanaynaa shir weyne caalami ah oo looga hadlayo arrinta Falastiin. kooxaha Falastiiniyiinta oo dhan Qaahira isugu keenaya, way imaanayaan Qaahira imaanayaan. dagaalkii maadaama hawshiisii dhammaanayso, sidii ay Falastiiniyiinta ula wareegi lahaayeen Gaza, dowladoodii ay u heli lahaayeen nidaamka. nimankan Yahuudi oo Ben Gvir, Smotrich iyo Netanyahu sheekadii wixii oo dhan waa loo soo gabagabaynayaa, waa lagu keenay iyagii baashi ku timid. Masar maxay leedahay Falastiiniyiinta oo dhan halkaan u shiraya ما بعد الحرب dagaalka kadib wixii la qaban lahaa dawladooda sida loo dhisay. Witkofna waa loo yeeray, masaarida waxay leedahay Witkof kaale adiguna heshiiskii ay xabad joojintii waqtiga lagu dhawaaqi lahaa wixii ka shaqay. Masar iyo nimankii wixii oo dhan Israa'iiliinta lagu geeyay meel kasta looga yimid. dawladihii waaweynaa reer galbeedkuna way taageerayaan, Norway hadeen, Ingiriis hadeen, nimankii markii horeba dawlad Falastiin oo halka ku jira lahaa kulligood waxay leeyihiin arrinkan uu fiican. marka nimankii waxa leeyahay Yahuudda ahaa godkoodii biyo ugu soo galay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadan, jiradda la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa galabta qoraysa warbixin ay leedahay Masar waxay marti gelinaysaa shir caalami ah, shir Falastiiniyiinta ay leeyihiin, kaasoo lagu xadidayo mustaqbalka Gaza dagaalka kadib. waxaa sidoo kale Witkof uu isaguna ku wajahan yahay magaalada Qaahira si uu uga qayb galo wada hadallada xabad joojinta. hawshii lagu jiraa waqtigii xabad joojinta lagu dhawaaqi lahaa wixii oo dhan wixii la wada. Netanyahu marka meel gooriyo jooga waa yaaban yahay, meel u dhaqaaqa male. waxaan waxay ku noqdeen lama filaan.
marnaba ma rumaysneen in xamaas ay dhahayso waa ogolnahay wax kasta ninkii marka nimankii Smotrich waa taagay mucaaradkiina halkaasay joogaan waxay leeyihiin Trump halkaas ka sii wad waxay rabaan ninkan inay god inta ku ritaan oo markii Smotrich asagu kala dhintaan iyo nimankan dawladooda burburto inay mucaaradkii Yahuudi yimaadaan oo ninkan maxkamad loo dhaadhiciyay rabaan ninkan la Netanyahu marka waxa leeyahay hal meel kaste baasho uga timid wuu yaaban yahay qadar xayeysiisa kadib Turkiga oo la hadlay Israa'iil soo daa dhammaan dadka Turkida ah ee aad qabateen xabsi weyn la geeyay oo khatar iyo waxaasi ma maqli karo diyaaradooda soo diraya hadda keena sheekada xiisaa leh qaybta dambaa ku faahfaahinayna xayeysiinta kadib متعشى برشاد القرآن الكريم يعلم الشريعة هبع عصرية أونلاين أذيكو جوجا كوريجا أما قوبت هذا الشقة مركز دار التقوى وحكومة بري القرآن كهبع عصرية أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكم ذا القرآن الكريم إكادة لغة عربية إيو علوم الشريعة استوان قلت وايد سعودها فضلا هروكات وهي فاهينا كالحديد من برض الشاشة كان المغضى هموكات دوكسيجا مركز دار التقوى شركة إمارة لكشري هومز وشركة قرية عصرية كدست مقالة نيروبي دالك كينيا حتى نوحي كوضع اسمها لو يقان The View حافظة باكلاندز جيتكا 6 أفنيو سيتي باك اسمها The View وحاوليه هي أذيك كستاو أساسية وحانو كوبين هي سيدا لبا قول صدح قول أفر قول إيو وليبا قول كي شغالها iyo 4 qol oo laba dabaq oo isdul saaran waa nooc loo yaqaan duplex hadaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoygu waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada كلتو wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo sabti ah barnaamijkuna waa kii labaad waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka hadaba qaybtan barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa Turkiga oo doonaya dadkiisu in saacada kadib ay soo laabtaan oo Turkiga lagu soo celiyo maanta waxaan deynay waa ogtiin saakay barnaamijkii dadkii daawaday way daawadeen inta aan daawana way daawan doonaan barnaamijkii subaxnimo saakay waxaanu ku soo qaadanay Israa'iil oo dadkii ay qabatay qayb badan oo kamid ah xabsi la yaab la geysay dad tacdiibka xabsiga wax lagu cadaabo oo Falastiiniyiinta lagu dhibaateeyo ayay geeyeen ku xireen markaas la soo baraarugay Turki muxuu yiri 36 qof oo Turkiya la socotay doomihii Israa'iil ay qabanaysi oo gargaarka u wada gas 36dooda gacanta noogu soo ridoy diyaarad Turkish Airlines la leexiyay meesha loo diray dawladda u dirtay waxa la dadka soo qaad dawladda kale marka oo ayaguna Turkiga saaxiib la ayaa waxay yiraahdeen annaguna noogu soo dar dadkeena ilaa dhowr iyo 10 ah marka halkaas ay wax marayaan Turkiga wuxuu leeyahay hal qof oo Turkiya ma reebi kartaa kulli soo saar dambiidi kama galin gargaar iyo hawlay wadeen idinka ku tacadiyay haddana na soo siiya dadkeena waa xabsi qatar loo geynaya dawladnimo marka waa kaas haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay wakaalada wararka Turkiga ee leeyahay Anadolu waxay leedahay Turkiga wuxuu diray diyaarad soo qaadaysa muwaadiniintiisa kuwaasoo ku xiran Israa'iil waxaa soo kale la sheegay in 12 kale oo dawlado kale u dhashayna ay Turkiga weydiisteen in dadkooda ay u soo qaadaan haddaba marka waxa la sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxay sheegtay in diyaarad gaar ah loo diray dadkii Turkida ahaa ee nabadda u ololeynayay ee Israa'iil ay qabatay waxaa soo kale yana soo raaci doona sida la leeyahay 12 dawlado kala duwan u dhashay haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in 12 qof ee soo raaci doona ay u kala dhasheen dalal ay Turkigu saaxiibay yihiin sida Mareykanka, Imaaraadka, Kuwait, Algeria, Morocco, Tunisia, Urdun, Libya, Mauritania, Italia, Malaysia iyo Switzerland intaasna dawladahoodu way la hadleen waa loo soo deynaya laakiin Turkiga 36 ku jirta 36 diyaaradda ay soo saaray
warna ma ka keeni kartaa ninkii balaqafiir ahaa dadka isku sii daray argagixisaatiin kanaatiin haddana dadka inta kaxeeyo xabsi qatar oo dadka lagu cadaabo ku shubay markaasaa dowladihii soo baraarugeen dowlad kasto marka waxaa leedahay dadkaygu isii marka ninkaan dowlad haysana dhibaato haysataa marka xaalku halkaasuu marayaa asxaabay barnaamijkaygii intaa ayaa kusoo gabagabaynayaa inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo iyo barnaamijyo kale laagareeya oo sheergareeya barnaamijka nabadgelyo